وحصل أيام له دولة مانتا محمد عبد الله فرماجو هي خير حامل كرسة إلى مالتي لدورتي إلى مالك كان مانتا وح أي وارد شوبته أو قاول أو دين والبا كوهيا أو إلا حد أي كوهيا قرن السومالي دقالنا لقى شيكين هو شوبته دقال كان قالوا هو شوبته كعونا قوتين هو شوبته كبروباغندا هو شوبته وحلياب له oo taariikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku guul ku gaadho waa la waayay Soomaaliya sodonkiisa ama 40kiisa oo dhawaay u dambeeyay dagaal u dambeeyay ku jirtay waana wada digtay aqliga toosan Soomaalidu maanta meel jirto waxay baantay inay qoyaan inta taran gaadho tashato laakiin waxa arkayaa dawladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareeysa dadka kuleynaysa ee kismaayo u samaysanaysa ee Puntland dirqada ay kaga baxsatay ee Soomaaliland dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya ciidamada qaranimada ay ilaalinayaan ee qaranimada midowga dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaali ka midowso laakiin Ilaahay waxa lagu rajaynayaa in Ilaahay fidmadeeda laga geliyo inaguna uu diyaar garoobayna waxa ay dhibaateen oo leeyahay dhinac walba inuu iska daafaco laba hal la isma qabanaya waxa soo baxay oo dawladda xamar ee farmaajo ee khayr keenay inay yiraahdaan Soomaaliland xadkii Ingiriiska iyo Talyaani u dhigteen xuduudda isticmaalka afruuda laga tagay aqbali mayno ee waxaanu sameynaa xadbeelad horta beel gudaheeda hataa haddii xasbaysta dhismi karaysaa ma jirto oo taariikhdeena tustay waxay loogu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay Cabdiwali oo ka horeeyay ninkan imika la doortay waa in la sameeyo xudbeelad xudreebada waxaa laga yaabaa xudbeelad uu doonayaa isaguna banaadir buu xukumaa labadaas isma qabtaan وطلبات حد بيرد بدونية أو ضد كل أيه ونقول صوري أو ضد صوري وباهن معه عيد وشو وكوكاي وعبد الله كابر وحلياب له مكني يسجل الدورين أيه وحالته تمي وهرجي ما شاء الله قبضنا وعذاك منها أحمد اسماعيل سواتر مركز دور الشدي حول في المكان قالوا حلوان ضد الخليطة وكله وحروها منك تقول لو بدك لي السوماليين احمد سعيد وتقول له روح روح ياله اسماعيل بابا كوريو 10 سنه وها وزير خارجي ولو روح ماشي ياله ninka xamar ku yimaado saa u dirayaan Soomaaliland oo dagaalamayn hargeysa burciyo boorbiyo la saan soo dagaalama waa arrin la yaab leh taa waxa ka dambeysay shirkii doorashada lagu galaayay Garowe waxa isu soo sharaxay ragga Soomaaliyeed dhan ugu aqoon weyn kamid ah Soomaaliland hormoodkeeda iyo aqoonteeda ugu horeeyay nasiib darro haddii ay tahay xudbeelad baan samaysanaya ninka Soomaaliland ka yimid ascaano ka yimid wuxuu ahaa tartanka ka qayb wax laga siiyo laakiin ma inay leedahay Soomaali waa tahay Soomaaliland dilbaatay Soomaaliland ku noqo deemay ahayd labada islaan ugu filan aqliyada taalo koonfur Soomaaliland oo la yiraahdo in kala fudurbaar labada raad dad badan kaga dhawaajiyaan idaacadaha oo aan wali wixii ku dhacay Axmed Ismaaciil Samatar iyo Ali Khaliif iyo Ali Ciise aan arag waxa ay ku hadlaan waxa uu sheegaya Soomaalidu waa wadadii marxaatiyadu waa maxay daahir riyaale ayaa ka guuleystay doorasho gacmeed oo walma wafowta silaayo oo ha hogaamiyaha sano oo lagu qaabilo 8 sano ku xukumay marxaatiyada Soomaaliland la wadalayay waxa ah xagla toosiye ayaa la tartamay ninka la yiraahdo Sayrici oo ku sigay oo diriq kaga baxsaday inuu ka reeyo ما Soomaaliland la leeyahay oo loo sibayo nin walba doodiisa ka dhigtay weeye xamar waxa aan leeyahay idinkiina dambaa isku shidaysa adduunkiina waa dambaa ku shideen annagina dagaal baan ugu haysaa aqli ka dhaama halala yimaado annagu nabad iyo hal la isbiso iyo dhibaatooyinka la baxaan taagan laakiin xadka Soomaaliland difaacina distoorkana furaya dadka iyaga nafaraaya cidna ka aqbal baa xadkii Soomaaliland u dhaxeeyay waa ku soo guuleeyay taa intaas ka gaaraya